وبركاته وان سلام يا أصحابتي سيدي ليهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان سلام أصحابتي سيدي ليهي صباح وناكسن صباح ayaan joogan walba waqtiga jooga ayaan ku salaamaya soo dhawaada walaalahay barta aad nagala socotaan waa Sahras channel gacmo furan ku soo dhawaado saaka waxaan in la share garaynayaa quraac fudud oo halti ah aad u macaan si fududna aan u sameeyay wax yar oo jikadaada aad ka helaysaa ka samaysan karta insha Allah waan la share garaynayaa channelka hadii ay tahay markii ugu horeysay subscribe hadii aad hore noola joogtayna waad ku mahadsantahay la joogitaankaaga like ra'yigaada ay kula noqoto ka soo comment qurux badan oo dhiirigelina masha Allah soo dhawaad jikada ayaan tagaynaa quraacdaas aan sameeyay ayaan in la wadaagayaa iyo inta shay ka kooban tahay insha Allah asxaabi hada jikadii ayaan tagaynaa saabta qaaliga ah waxaan halka ku haystaa gabal oo digaaga shafka ah xabad basal laba xabo barandha iyo jeex kaabash iyo xabad basal marka kaabashka ayaan hadda jaranaynaa iyo shan xabo kuna marka intaas ayaan quraacda ka sameeyay innaba caadi ma ahan waa quraac aad u macaan qof kastana uu karin karo gabdhaha yaryar wiilasha iskaabulada maamooyinka aabayaalka wax walba qof kasta uu karin karaa ma fahanteen marka soo dhawaada insha Allah sida aan u kariyay ayaan in la share garaynayaa waxaan jaray kaabashkii haddana waxaan jarayaa chickenka si yar oo dhuudhuuban ayaan u jaranayaa marka asxaabta qaaliga ah bur iyo waxba kuma daraayo marka chickenka sida u jartay haddana waxaan jaranayaa barandhadii si yar yar ayaan u jarayaa oo khafiif ah si ay dhaqso ugu bislaato marka ila socdo videoga ilaa dhamaadka fiirso waad ku mahadsantiin daawashadiina kommentiyadiina quruxda badan ducada dhiirigelinta iskugu jira maasha Allah asxaabay waa kana barandhadii waan soo jaray kaabashka chickenka digaaga wixii oo dhan basasha waan soo wada jartay daawo ayaan dabka soo saartay barandhada ayaan shiilayaa marka hore saliid yar ayaan ku shiilayaa cusbaan ku daray waa ka way bislaatay hadda waan ka dejinayaa saliida ayaan ka saarayaa okay marka saliida way ugu badan tahay haaf ayaan ka shubayaa haddana basashii iyo kaabashka ayaan shiilayaa dabka ayaa dib loogu celinayaa laakiin waan yarayaa wax yar baan yara kululeynayaa filfil ayaan ku daray shiidan marka sidaa ugu gadgadiyo waan ka soo gadiyay hadda saliid yar ayaan ku daray chickenka ayaan haddana shiilayaa waxaan ku soo darayaa maraq digaag waxyaabaha kale dib ayaan aga darsan doonaa marka waa kana wixii oo dhan markaan soo wada kariyay baaquligan ayaan soo qaatay waxaan ku soo shubanayaa 5 xabo oo ukunta ahayd waxaan ku soo daray kabsar shiidan haddana waxaan ku darayaa kaabashkii iyo barandhada ayaan ku darayaa chickenka dib ayaan ka isticmaalayaa marka intaa ku daray ayaan qasayaa okay waxaan ku darayaa xawaash basbaas guduud sanjabiil milix yar si fiican ayaan u qasayaa hadda daawi ayaan dabka soo saaranayaa saliid ayaan sidaa u marmarinayaa si uuna u qabsanin dabkana wuu ii gaaban yahay dab dheer haddii aad ku samayso hoosta ayay kasoo gubanaysaa marka aniga waxaan rabaa iyadoo oo aan gubanin hoosta guduud ay ka noqoto ayna ii bislaato ma fahanteen marka haaf ayaan ku shubay alaabta ii qasnayd haaf ayaan ku shubay waan daboolayaa hoosta ha ka soo guduuto wax yar ayaa u haray waa kana asxaabi markii aan ka soo noqonay chickenka ayaan ku shubayaa haddana waxaan rabaa chickenka inuu dhaxda ii galo ma fahanteen haddana waxaan ku soo shubayaa haafkii aan reebo ukunta iyo kaabashkii iyo barandhadii ahaa dusha ayaan kaga shubay chickenka gudaha ayuu galay marka hareeraha ayaan ka sisimayaa waan daboolayaa waaw sidaas ayay ku soo baxday hoosta guduud ayay ka noqotay haddana waan gidinayaa dhanka kale ayaan guduud ka dhigayaa soo ma aragtaan xagga hoose siduu noqday innaba caadi ma ahan maasha Allah waa kana asxaabay marka hadda aan ka soo saaray kor iyo hoosba guduud qurux badan ayuu noqday innaba caadi ma ahan waa inoo fiidiyowga dambe ka faa'iidaysi wanaagsan